ciyaaryahanada iyo tababarayaasha oo kaliya ma aha dadka awoodda sare ku leh ciyaarta kubadda cagta ee dunida waxaa maalmihii ugu dambeeyay si aad u soo kordhayay wakiilo dhanka kubadda cagta kuwa oo shirkado iyo shakhsiyaadba isugu jira waxaana wakiiladan qaarkood ay ka awood badan yihiin ciyaartoyda iyagoo garoonka gala ee kubadda cagta ciyaara waxa ay xeeriyaan oo ay soo galaan wada hadallo qarash aad u fara badan ay ku baxdo taa oo lagu xeerageeyo ciyaartoy mihnada kubadda cagta iyagu leh iyo sidoo kale macallimiin qaar ka mid ah wakiiladu waxa ay sameeyaan mararka qaarkood lacago waali ah oo ka badan xitaa lacagta uu ciyaaryahanka ku shaqeeyo taasoo ka dhigan in wakiilku qayb muhiim ah uu ku leeyahay marka loo eego ciyaarta kubadda cagta hadda wakiilada aynu ka hadlayno ma aha Jorge Mendes mana aha Mino Raiola ee waa laacibkii hore ee xulka qaranka dalka Soomaaliya ciyaaryahan Ismaaciil Maxamed Cumar oo diyeesha lagu naanayso waxa uu ka mid noqday wakiilada caalamiga ah ee u diiwaan gashan xiriirka kubadda cagta dunida ee FIFA waxaana Ismaaciil hadda uu awood u leeyahay in ciyaartoy tayo wanaagsan uu ka baadi goobo marka loo eego wadamada qaaradda Afrika Asia qaaradda Yurub iyo halkii kale uu calafka u galo Ismaaciil ma aha Soomaaligii ugu horeeyay ee heerkan isagu gaara oo agent ama wakiil markaa noqda waxaana kaga horeeyay oo laga xusi karo Jamaal kaasoo bariga qaaradda Afrika ka qaada ciyaaryahano isla markaana geeya dalalka qaaradda Yurub oo Sweden ugu horeyso haddaba guushan uu gaaray Ismaaciil Maxamed Cumar Diyeeshe ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka dalka Soomaaliya oo la xusuusto ciyaaryahan ka sakow kaalintii uu ku lahaa in xulka kubadda cagta dalka Soomaaliya uu yeesho awood aad u sareysa markii uu dadaal xoogan u galay in xiriir kala duwan uu la sameeyo ciyaartoyda kubadda cagta ee xirfadlayaasha iyagoo ku kala sugan qaaradaha caalamka kuwada Soomaaliya u dhashay kuwa oo uu qaarkood ku guuleystay in ay ku soo biiraan isla markaana ay xidhaan fanaanada quruxda badan ee dalka Soomaaliya haddaba waa sidee dareenka Ismaaciil markii uu ku soo baxay liiska ay ku jiraan dad aad u fara badan oo magac ku lahaa kubadda cagta oo uu ka mid yahay laacibkii hore ee naadiga Barcelona ciyaaryahan Ivan de la Pena. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبكي زعيمك وسلامة بقولكي بقول رنتي وعنك عجم هاد علينا يا بقولكي بقول الحرير كإلى صوص مسي رنتي أنا وفرح سنين معناها أديك وكلا ورنتي أنت صوصنا عيارها صور حجري دلك أو أهلين أد دلك لو قدريو رنتي أنا وفرح سنين إن أنا كمل نهضات كنسيبكو يا شيء أدرس اللي يالتو runtii arrintan oo hadda cusub oo amood inay bulshada qabsatay runtii wax igu dhaliyay waxay ahayd saan ku qiyaasi karo dhowr fursado soo maray iyo dhowr arrimo kulmeen awgeeda waxaan go'aansaday in macnaha arrintan oo ajannimada inaan ku dhaqaaqo maadaama aan waxyaalo badan markaan arkay oo runtii aan xaliyay oo ayna ay fudaadeen sida hadda معناها مرة وإنها كذا ده المجاعة شيء لكن دور معناها أريمو وذا كل ماي أو كذا وحنقو عن صدي وكذب بدن مركانات تشتي وسحبت ده يدد أورنتي فيفا إيجن وذا أو معناها أنتس شقة بدل قبطي مركان معناها الله هذلي يدد هذا ما أنت دلك تشاينا مجاعة كله وأنت سعيارتو يجي يلي قانو كذب وحنقو عن صدي مركان dib iskugu noqday in shaqadan macnaha aan ka bixi karo aan qaban karo oo waxyaalo badan aan qabtay markii aan arkay inay hirgaleen waxaan go'aansaday in shaqadan aan qabto kadibna way ii suurta gashay alxamdulillah oo maanta natiijadii aan ku haminay in aan heerka gaari karo oo kulli hadda qaybtii koowaad waxaan dhihi karaa waan ku guuleystay waxaan rajeynayaa insha Allah hadan qaybta labaad inuu Ilaahay ii fududeeyo markii magaca Ismaaciil lagu arkay liiska dheer ee wakiilada kubadda cagta caalamka ee FIFA markaas ay soo saartay ayaa waxa uu Ismaaciil durba helay hambalyo iyo dhiirigelin kala gedisan oo uga timid qaar ka mid ah ciyaartoydii hore ee xulka kubadda cagta dalka Soomaaliya ciyaartoy ajaaniba gaar ahaan qaaradda Afrika macallimiin xulka qaranka dalka Soomaaliya iyagu soo maray iyo dad kale aad u fara badan oo isugu jira ciyaartoy maamulayaal iyo taageerayaal kala gedisan oo dhanka kubadda cagta iyagu aad u jecel haddii aan xuso qaar ka mid ahna Jamaal oo isagu ah agent ama wakiil ciyaartoyda qaaradda Afrika ka wada isla markaa geeya dhanka iyo qaaradda Yurub iyo sidoo kale Aasiya laacibkii hore xulka qaranka dalka Soomaaliya Ciise Aadan Abshir Ciise Dheere توبري هراء حلقة قرن كدلك سوماليا محمد عبد الله فريرة توبرها سومالي جاه يسوق هجامية حلقة كبد عقتة بربادوس معلن أحمد جاب
ciyaaryahanka khadka dhexe ee xulka qaranka dalka Cameroon Carlian Imba kabtanka xulka qaranka dalkaasi Uganda Kazaga Richard Legend Bashir Macalin laakiin waxyaalaha igu farxadda badnaa waxay ahayd sida hadda Jamal oo kale oo ah nin la yaqaano oo Kenya si fiican loogu yaqaano ilaa Afrikada hoos oo dhan si fiican loogu yaqaano ciyaartooy badan ka waday oo dalka Sweden geeyay in macnaha uu isu hambaliyay oo maanta macnaha garabkayga uu taagan yahay oo macnaha ala dhigi kara inaa asay arday hataa uu noqon karo maadaama oo intaas oo ciyaartooy oo geeyay wadanka Sweden runtii taasna aadan ugu faraxsanahay waanu isu xiriiriyaa taasna horta waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo sida macalinka Barbados macalin Axmedey asagana runtii oo isu hambaliyay oo asagana maanta ugu dambeynta taa macnaha meel badan aan ka wada hadalnay oo macnaha igu hambaliyay asagana garabkayga oo taagan yahay sida hadda ciyaartooyda qaar dalka Cameroon oo kale kabtanka dalka Uganda oo kale macnaha ma la soo koobi karo runtii waxaan helay dhiirigelin oo aad u weyn zaciimka adigana sidoo kale macnaha haween iyo maalin saan macnaha ii soo waco macnaha lama soo koobi karo runtii farxadeedii aadan ugu faraxsanahay laakiin waxaan rajaynaa macnaha mar rabo inaan kaliya aan noqdo in qofka la bunbuniyo kaliya oo macnaha la ilooba kadib waxaan rabaa inaan macnaha qaybta labaad aan u gudbo ومعناها مربو wax ka dambeeyo inaan macnaha ku talaabsado hamigeyga markasta aniga horta waan jeclahay macnaha shalay waxaan guriyoonahay in ciyaartooyda qurba joogto inay dalka matalaan ay xulkeena ay wada matalaan ayagoo macnaha fursad ay una ka garto in macnaha kooxaha waaweyn ay aadaan haddana macnaha waxaan ku hami weynahay in macnaha hal iyo laba ilaa wax ka badan ciyaartooy ah la yiraahdo Ismaaciil macnaha nasiib u yeeshay ama ka caawiyay inay kooxaha kale inay u gudbaan taasna runtii waa ku haminaa 100% marka qof aad aabiso oo macnaha wixii meel fiican ay gaaraan oo qof kale aad farxad geliso waxa u maleysaa in hataa aad kaleeyso dhiirigelin aad u weyn aadan ugu faraxsanahay maanta markaan arko macalinka oo da'da yar Cabdixamiid oo runtii hadal aad u dheer kadib aan ku guuleystay shakhsiyan macnaha in oo aan ka dhaadhiciyo inuu Soomaaliya yimaado wariyaankii hore ee xulka kubadda cagta dalka Maxamed Nuur Cabdi Sharkey oo kamid ahaa bahda u hambalyeysay guusha uu gaaray Ismaaciil Diyeeshe ayaan la kulmay bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waa Maxamed Nuur Sharkey halkaan waxaan ugu hambaleynayaa Ismaaciil Diyeeshe ma sha Allah horumarka uu gaaray oo hadda ma sha Allah agency-ga oo noqday marka waxaan rajeynayaa insha Allah intaan in ka si fiican inuu gaaro ciyaartooyda jaaniskooda oo faa'iideeyo marka hambaliyaan leeyahay ma sha Allah hambaliyaan maclimu Diyeeshe waxa uu kamid ahaa ciyaartooyda dhanka kubadda cagta sidoo kale wuxuu aad ugu hawlanaa dhaqaaqa dhanka isboortiga ee ciyaartooyda dibadda uu ka keenayay maxaa ku xasuusataa marka loo eego in ciyaaryahanada marka uu ku dhiirigeliyo xulka qaranka wallahi waxaan ku xasuustaa ma sha Allah tartan sakaafa oo aniga oo ka maqan wadanka oo mar qaranka oo matalay marka ma sha Allah ciyaartooyda markaan wareystay waxay dhahay ninkaas nin ma sha Allah waayo qalbi fiican horumarna jecel marka hadda horumarkaasna ciyaartooydaas waa ii sii sheegeen in haddana intaan ka arkay in yar ma aho dadaalkiisa dadaal aad iyo aad u weyn ayuu muujiyaa marka horumar ayuu jecel yahay Soomaaliya ciyaartooyda ama macallimiinta ama dad maamulka inuu horumar gaarsiiyo jecel yahay waatay macluum ugu dambeyntii Ismaaciil hadda wuxuu markaa kamid noqday agentiga ama markaa ama dulaalinta ciyaartooyda markaa ka iibin doonta marka la eego kooxaha caalamka ka dhisan horyaalada kala gedisan qaaradda Yurub ma isleedahay Ismaaciil oo jeclaa horumarka isboortiga dalka Soomaaliya wuxuu arinta uga faa'iideysan doonaa ama uga faa'iideyn doonaa ciyaartooyda Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa markaa uu ka geli doonaa ما شاء الله ciyaartooyda Soomaaliya jaanis ayay u tahay waayo nin walaalkooda ayaa agency noqday oo Yurub ku darsoomay maanta agenciyalka dadka la yaqaan xataa waa arki kartaa yani table ku jiro oo laacibiinta ciyaartooyda hore oo deeli jireen Ronaldo iyo dadka la deeli jiray Barcelona Ivan Dalbena iyo ciyaartooy kale oo lamid yihiin marka horumarkaasna waxay faa'iido u tahay ciyaartooyda hadda yani dhalinyarta soo baxday marka jaaniskaasna horumar ayay u tahay nin walaalkooda ayaa maanta agency u noqday garabna ka heli doonaa hamiga uu leeyahay qof waliba inuu ka guul gaaro waxay ku xiran tahay hadba dadaalka uu sameeyo Ismaaciil Maxamed Cumar ayaan ka marqaati ahay in uu dadaal iyo juhdi ku bixiyo marka loo eego minadan kubadda cagta isagoo soo noqday ciyaaryahan garan u gala xulka kubadda cagta dalka Soomaaliya sidoo kale dhiirigeliye ciyaartooyda Soomaaliyeed ee ku kala dhaqan dalka dibadiisa isagoona hadda ka mid noqday agent ama wakiilada dhanka kubadda cagta ee ka jira caalamka waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar